aynu soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26 bishii Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka sida uu sheegay afhayeenka dawladda. Isla bishaas 26keediina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegey xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqayso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska? Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabado ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka naqaanaa shakhsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood wax horumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dawladeed ay baaritaan ku samayso laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayey 26 bishii Juun ee sanadkan waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8 fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd. Hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga bishii Juulaay 11 iyaga oo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24 Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27 bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax. Waxay kaloo wareysteen gabadha shaqaynaysa Ikraan Tahliil. Sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kireysay. Waxay sidoo kale qoraal ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA. hase yeeshee sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen waxay NISA ku wargelisay guddigaasi inay iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 38 bog sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA. Waxaa marka noo soo baxay maxkamaddii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in ay jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey inta aysan soo shaac bixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay aysan NISA daahinin ayaa waxaa dhacday in baaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay dhaheen annaga hay'ad dawladeedaan nahay inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan annagaa idiin soo baarayno dacwadan idii keenay noo keena annagaa baaritaanka samaynayno. ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo la eedeynaayo inay haddana ayaga isbaarayaan oo idahayaan annagaa isbaarayno oo dacwo laga diyaarinaayo ama jawaabo laga diyaarinaayo laleeyahay hebel waa soo wareysano sidaanuu yiri hebel waa soo wareysano sidaanuu yiri. Sargaal sare oo ka tirsan hay'adda NISA oo galka baarista wareys ka siiyey kiiskan waxa uu beeniyey inay hay'addu is-hortaag ku samaysay guddiga baaritaanka wada.
sarkaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. sarkaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmigaa waxa weeye taasi inaysan jirin. cid aan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. mar aan wax ka weydiiyo waxay u oggolaan waayeen in la waraysto dadka laga shakisan yahay waxa uu sarkaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aan u diidnay. guriga ay deganeed Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee Niisa ee degmada Shibis. goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hotel oo waaweyn. waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwo ka shaqeeya garsoorka. khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamarooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. kaamarooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamaradaha hay-adda Niisa, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. saraakiisha garsoorka iyo kuwa Niisa waxay isku raacsan yihiin inaan la haynin muuqaalkii maalintii 26 Juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. hase yeeshee sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. hay-adda Niisa waxay qiranaysaa inaan la haynin muuqaalkaasi. sarkaalka u hadlay hay-adda Niisa ee waraysiga siiyey galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda Niisa mashruuc qabyo ah oo socda, ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sarkaalkaasi. markii aan weydiiyey sarkaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u deristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo. cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi: waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin. iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. waxa uu beeniyey sarkaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada. hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda Niisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda Niisa ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara. hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importance ama muhiimad intaas leh qalabka la geenayo horta waa qalab kow tayadiis aad looga fikiray. laba waxaan loogu talagalay in waxa lagu eego oo waadihu oo kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa. labo la kaydiyo. saddex wax lagu control. waxaan aaminsanahay terabyte-ka ama capacity ayayna ku xiran tahay. qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yar yahayna 1 sano si rasmiya u hayn karaa wixii uu record garay ama wixii uu kaydiyey. haddii xitaa ay wax tirtirmaan wax loogu talagalay oo booskana siryar ama si tartiib ay u tirtiri karaa. hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacity-good intaas waa ku xuliya minimum ama inta ugu yar 5 sano. waxaad ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay Ikraan? kow horta waxaa la garan karaa si fuli ah, si dhamaystiran gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshuu aaday ayaa la garan karaa. saacadda soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa. ileen wixii sababtaba waxaan loo keenay waxay tahay kow in dhaqdhaqaaqa lagu controlo, wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo. marka haddii la helo gaariga soo qaaday ayadoo fuulaysa, kow zoomaa la saari karaa, waa la soo dhaweyn karaa, darawalkaa la fahmi karaa, taargadaa la fahmi karaa, qofka soo daya la fahmi karaa, waqtigu soo galay, meeshu ka soo galay, meeshu ka baxa la fahmi karaa. marka waa meel fiican oo wax laga bilaabi karo xagga baarista. labadii bishii Sebteembar ee aynu soo dhaafnay, hay-adda Niisa waxay sheegtay in Ikraan Tahliil Faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen. sarkaalka u hadlay hay-adda Niisa waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi. sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14 bishii Juulaay, laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubbada Dhexe uuna ku dhammaado webiga Shabeelle. hase yeeshee ilama wadaagin sarkaalkaasi caddaymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen inay Ikraan Tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. qoyska Ikraan Tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda Niisa. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan Tahliil ay tahay midaan lagu qanci karin. saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin caddaymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay Ikraan Tahliil.
sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin caddaymo muujinaya in hay-adda niise ay dishay ikraan tahliil waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro 13 bishii Sebteembar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska ikraan guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo Sareeye Guuto Cabdullaahi Buule Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska ciidanka iyo hay'adda niisa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hogaamiso maxkamadda militariga waxa ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka ikraan galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil faarax murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono kasokow maxaan ka naqaanaa ikraan tahliil faarax ikraan tahliil faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24 bishii August 1996 yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera halkaas oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi halkaas oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School ikraan tahliil markii ay ka qalin jebisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University kambaskeeda Afrika oo ku yaala magaalada Nairobi waxayna ku qalin jebisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah markii ay ka qalin jebisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ka bilowday banki ku yaala dalka Kenya kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda niisa isaga ayaana ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horeysay ee dawladeed aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey waana full recommendation ama dad ayaa iga soo wastay shaqadii ugu horeysay ay qabato maxay ahayd hay'adda ka qabato shaqadii ugu horeysay hay'adda ka qabato waxay aniga gacan waa gartay maxaana ka mid ahaa hawl maalmeedkeeda wax ka mid schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamaheyga inay la socoto shirarka qaarkood galaa minutes iyo waxaas inay qaado inay note ka qaado ballamaha inay qabato protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanayana soo dhaweyso kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notiska ay qaado haddii loo baahdana ay samayso report يعني howlo qaasta inta loo diro inay warbixino ka diyaariso ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017 bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda niisa oo agaasimo looga dhigay shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain iyadoo ka shaqaynaysa arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda niisa sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa Julaay 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo koodii bishii August 2019 u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa dilkii injineer Yariisow kadib ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda shaqada hay'adda kasokona waxay ku hawlaneyd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay isla sanadkaas 2019 ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha sanadkii ku xigayna waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain waxbarashadaasi oo uu carqaladeeyay dillaacay cudurka COVID-19 qorshuhuna uu ahaa inay qalin jebiso bishii August ee sanadkan ikraan tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga Soomaaliga iyo Sawaaxiliga agaasimihii hore ee hay'adda niisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshe gabar oo daacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentiality-ga qof ilaa xad aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirta ka baxaynin hawlkar oo aan daalinin xafiiska front office la yiraahdo ama xafiiska taliyo afar saac u shaqeeya aan weligood sheeganaynin daal iyo
iyo kala daadsanaan ka dareemaynin daaniisa shaqadeeda edad leh spirit iyo sheegeen teamwork ama dadka la shaqaynteeda iyo habkay dadka ula shaqaynaysa oo fiicnaa ayuu ahaa. marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo? marnaba qofkaas dabeecada laga shaki karana ma ahayn. qof waxay ahaaday shuruud ah oo aruursan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesho moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlana. marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock testiina waa lasoo imtixaamaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabona laga soo qaada ilaa xad screenisa lasoo marsigaayo qofkaas dabeecadaheyga iyo marka la keenaana background check lagu sameeyahay dadkii taqaanay connectionskeeda iyo waxa ka suurtaba iyo habdhaqankeeda hobbigeeda iyo waxaan waa lasoo baaraa qof hadda iska aamina keena because hay'adda waxay ka shaqayso dhan oo xasaasi ah oo complex ah oo aan la fahmi karin oo yani aan sahlanayn waa howlo badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo howlo badan xasaasi ah. haddaba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska Ikraan Tahliil, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Idle Sulaymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka. horta marka hore maxaa ka dhalanaya kiiska sidaa ma laga gudbi kara? kiisku haddii mar la oogo oo dacwadda kor la horgeeyo hay-adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro in maxkamadda go-aan soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay, ciddaasaa lagu helay iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi wuu beerooday ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo hore dacwaddaas way taagnaanaysaa. dacwad baaba-aysa ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay horgeeyey garsoorka. taasi waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama darafkii unuga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego penal codeka qaybtii saddexaad qodobada ka warramaya 222, 255, 219 qofkii kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo in uu geeyaabaa ku waajiba. haddii kii wax ka ogaa uu geen waayo dembiga uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyey uu tegi waayo amaba uu ka qayb qaadan waayo dembiga uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembi baa ka imanaya. waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxa loo yaqaano sarreynta sharciga, hogaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga uu ku waayo, waxay iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof walba sharciga gacantiisa ku fushado. waxay imanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aan adeeg u soo dooran hay'adaha cadaaladda. haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay Ikraan Tahliil? maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay 6 sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn Ikraan Tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax caddayn ah. sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay-adda niisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalowshe oo sheegay in Ikraan dilkeedu uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay. gabadhaas political crime yani dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen. hase yeeshee qoyska Ikraan Tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. Dr. Xasan Faarax Axmed waxa uu macallin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay Ikraan Tahliil. annagu Ikraan Tahliil Faarax way nooshahay, waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa Ilaahay. dad inuu sababo way iska dhici kartaa, laakiin nolosha iyo dhimashada horta Ilaahay baa iskale. haddii Ilaahay uu u qoray inay waqtigeedii weli wax ka dhiman yahay, wax kastoo ay marto way badbaadaysaa haddii Ilaahay yidhaah. laakiin annagu xaggeena way nooshahay, waana sugaynaa Ilaahay idinkiisa. Ilaahay baanan taladeena saaranayna. cid aad doonaysaan hadday tahay beesha caalamka, hadday tahay hay-ado kale oo caalamiya oo aad isleedihiin maanta baaritaanka gacan bay ka geysan kartaa ma jirtaa? waana laga gargaran yahay qofka madluumka ahna dee Ilaahay baa ballan u qaaday walow bacda xiin inuu u kaalmaynayo. Ilaahay aan baryaynaa ummadda Soomaaliyeed idinkeedna waxaan u sheegayaa Ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan
khaasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay ikraan iyo ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka ku soo hartay waxaan leenahay cadaaladdu adduunka oo dhan bay dan u tahay baraka ayaa ka dhacaysa qof kastay dan u tahay ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado aan u wada istaagno ikraan tahliil $1 billion ku garanayno way nooshahay iska soo daaya arrintii way dhamaatay haddii ikraan tahliil aan ogaano in la dilay dadkii jawaana qana waqti kasta ha qaadato xaqaado kasta ha ku noolaadaan ikraan cadaalad bay helaysaa one way or the other. dhegaystayaal waxay naga xasuusinahay in galka baaristu uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya iyo taliyii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin oo labaduba aan ka soo jawaabin codsigii waraysi aan u gudbin. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.